Ku soo dhawaada qaybtii labaad ee maqaalkii aan uga hadlaynay afduubkii diyaaraddii Lufthansa ee ay gacanta ka geysteen militariga Soomaaliya. Howlgalka lagu badbaadiyey diyaaraddii afduubnayd ee Muqdisho ka dhacay 1977 waxaa guushiisa si weyn loogu amaanay dowladda Soomaaliya. Sida aan ku sheegnay qaybtii hore, diyaaradda la qafaashay ee lambarka duulimaadkeedu ahaa 181 waxaa lasoo dulmariyey magaalooyin dhowr ah oo la damcay in lagu dejiyo. Dhammaan meelihii kale ee loo jiheeyey waa laga diiday in ay ka caga dhigato. Dal kasta oo lagu leexiyeyna wuxuu ku gacan sayray codsigii loo gudbiyey, maadaama ay suuragal ahayd in meesha diyaaradda la geeyo uu ka dhaco xasuuqa rakaabka ama in la aqbalo dalabka afduubayaasha. Waxaa kale oo mar walba iska caddayd in isla goobta diyaaradda la geeyo laga fulin doono howlgal aan la saadaalin karin waxa ka dhalan kara. Dowladda Jarmalka ayaa heegan ugu jirtay in ay ciidamo degdeg ah geyso meeshii ay noqotaba. Tusaale ahaan, waxaa ciidanka commandoska la sii geeyey dalalka Qubrus iyo Iiraan oo labaduba ay macquul ahayd in diyaaradda laga dejiyo. Kadib waxaa commandoska loo gudbiyey magaalada Ankara ee dalka Turkiga, halkaas oo ay ku sugnaayeen ilaa amar dambe. Markii ay burcadda diyaaradda gacanta ku haysay ogaadeen in commandos lagu diyaariyey Ankara, waxay isla markiiba dalbadeen in ciidankaas dib loogu celiyo Jarmalka. Waa laga ogolaaday. Warbaahinta Jarmalka ayaana shaacisay in commandoskii lagu celiyey waddankooda. Ha yeeshee, waxayna ka warqabin in guuto kale oo commandos ah ay kala joogeen dhinaca bari ee badda Mediterranean-ka iyo waddanka Iiraan. Markii diyaaradda la wareejiyey ilaa 6,000 oo mayl, waddan ku deeqa in lagu dejiyana uu soo bixi waayey, ugu dambeyn dowladda Soomaaliya ayaa si geesinimo leh u ogolaatay in diyaaraddaas laga dejiyo Muqdisho. Durbana waxaa la diyaariyey ciidan gaar ah. Markii la soo gabagabeeyey howlgalka badbaadinta ee lagu dilay dhammaan 4 afduubayaal, waxaa ku xigay hambalyadii loo soo diray dowladda Soomaaliya. Afhayeenka dowladda Jarmalka Klaus Bolling ayaa sheegay in mid ka mid ahaa rakaabkii diyaaradda oo daal badan ka cabanayay lagu daweeyey isbitaal ku yaala Muqdisho. Wuxuu sheegay in rakaabkii kalena dhakhaatiir caafimaadkooda eegta loogu geeyey garoonka dhexdiisa. Sidoo kale, afhayeenka ayaa warbaahinta ka hor aqriyay bayaan ay si wada jir ah u soo saareen xukuumadda iyo hogaamiyayaasha xisbiyada ee baarlamaanka Jarmalka. Bayaankaas waxaa mahad iyo ammaan ballaaran loogu jeediyey dowladda uu madaxweynaha ka ahaa Maxamed Siyaad Barre. Haddii aan ogolaansho buuxdo iyo caawinaad laga heli lahayn mas'uuliyiinta Soomaaliya, ma suuroobi lahayn howlgalka military, lamana badbaadin lahayn dadka rakaabka ah, ayaa lagu yiri bayaanka. Hogaamiyaha Jarmalka Helmut Schmidt ayaa warqad telegram ah oo uu Siyaad Barre u soo diray ku soo qoray: "Weligeen ma iloobi doono abaalka aad noo gasheen," sida uu sheegay Mr. Bolling. Jarmalka ayaa caddeeyey in marnaba aysan ka fikirin fulinta dalabka afduubayaasha ee ahaa in loo sii daayo 11 qof ee ka xirnaa. Haddii aad ka heshay barnaamijkan, fadlan ku soo biir Maanfur. Share, subscribe, like. Mahadsanid.